xuriyadii ummadda Soomaaliyeed ay hanatay 1960kii waxaa loo soo maray halgan aad u dheer oo dhiig badan ku daatay isla markaana halgamayaal fara badan ay maalkooda iyo naftooda u horeen si Soomaaliya ay u hesho xuriyad buuxda. Shalay ayay ahayd markuu madaxweynihii dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu daafuray dib u dayactir lagu sameeyay taalooyinka halgamayaasha Soomaaliyeed. maanta team dhowl cadeen media waxaa u suurta gashay inay qaataan qalabkooda iyo kaameradooda ayagoo halkaasi tagaya soona duubaya taalooyinkaasi si aan ugu diyaarino warbixin yaroo macquul ah. haddaba yaa idinku dheeraanine daawada taalooyinkani taariikhooda ka koobana dhageysta. dadka ugu xiran badankii waa dhalinyaro hadda soo kacaya, midaas ayaan ugu kaliftay in aan maanta barnaamijkani aan sameyno. sayidka ayaan ku hormari doonaa. sayid maxamed cabdulla xasan wuxuu ku dhashay magaalada Buhoodle ee gobolka Tagdheer 1856. sanado badan uu geliyay waqtigiisii barashada quraanka. wuxuu u kacay dalka Sacuudiga si uu wax ugu soo barto, kadib wuxuu ku soo laabtay dalkii oo gumeysi ku jira. waxa uu asaasay daraawiishta dagaalna la galay Ingiriiska 1899 ilaa 1920. Ingiriiska iyo daraawiishta waxay iskaga hor imaadeen 41 goobood oo dagaal ah, kuwaas oo ku jiraan dagaal caan ah ayaa dhexmaray. dulmadoobe ama Coofil waxa uu ahaa dagaalada ugu caansan, wuxuuna dhacay 13 Agoosto 1913 waxaana lagu dilay Coofil. wuxuu tiriyay gabayaal badan oo caan ah. 9 nin oo walaalo ah iyo Coofil waxay ka mid yihiin gabayada caanka ah oo tiriyay sayidka. waxa uu ku dhintay ilaa 21 December 1920. xaawo cismaan xaawo taako waxay ka mid ahayd dadkii sida weyn u taageeray misla la dhacsanaa halgankii ay wadeen dhalinyaradii Soomaaliyeed ee SYL la dhisay 1943. xaawo cismaan xaawo taako waxay ka qayb qaadatay isku soo baxyo oo dalka Soomaaliyeed ay sameeyeen, kuwaasi oo lagu doonayay in Soomaaliya ay noqoto waddan madax bannaan. sanadkii 1948 xaawo waxay ka qayb qaadatay banaanbaxeedii ugu dambeeyay nolosheedii, kaasi ay gumeysiga si naxariis la'aan ah u dileen. inkastoo nolosha halgama xaawo taako intaas ku dhamaatay, haddana dowladda dhexe ayaa go'aansatay in loo dhiso taalo misna lagu magac daro xaafadaha qaar iyo goobooyin waxbarasho si aysan marnaba niyadda dadka Soomaaliyeed aysan ugu go'in halgankeedii. xaawo cismaan xaawo taako. axmed ibraahim gurey wuxuu dhashay 1560 wuxuuna ku dhashay Hoobata waqooyiga Harar. wuxuu dagaal la galay xabashidii ayaa codsi dheer waxa u dirsatay boqortooyadii Boortaqiiska, kuwaas oo lahaayeen awood sare xilligaasi. waxayna u soo direen ciidan gaaraya 450 qofood, kuwaas oo wata hub casri ah leena tababaro aad iyo aad u sare. 1543 wuxuu dagaal dhex maray ciidamadii xabashada oo gacan ka helaya kuwii Boortaqiiska iyo Soomaalidii. halkaasna waxaa ku geeriyooday halyey axmed ibraahim gurey, ilaaha u naxariisto. 15 May 1943 waxaa suurta gashay in 13 dhalinyaro Soomaaliyeed ay dhidibada u taagaan xisbiga la magacbaxay SYC Somali Youth Club ama ururka dhalinyarada Soomaaliyeed, kaasi oo markii dambe u xubsiibtay ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL Somali Youth League. sanadii 1947 ayaa magacaasi si sax ah loo hirgeliyay. 13 dhalinyaro waxa ay ka koobnaayeen Cabduqaadir Sheekh Saqaawudiin, Maxamed xirsi nuur CD, yaasiin xaaji cismaan sharmaake, xaaji maxamed xuseen maxamed, cusmaan geedi raage, dheere xaaji dheere, daahir xaaji cusmaan, cali xasan maslax, maxamed cali nuur, maxamed faarax helowle, xaaji maxamed cabdullaahi xayeesi, huudo macalin cabdulle, maxamed cusmaan baarbe. intaasi waxay ahayn 13 dhalinyaro ee halgan ee dhaxda u xirtay in aan maanta ku raaxaysano xorriyadani. halgame dhagax tuur magaciisu waa Maxamed Cali Huud oo ku cambaxay dhagax tuur. wuxuu dhashay 1913 degmada Hobyo. kaligiis ayaa weerar ku qaaday Ingiriiska 5 Oktoobar 1949 kadib shacabkii ayaa soo wada galay dagaalkaasi. axmed halgame dhagax tuur magaciisii saxda ahna waa Maxamed Cali Huud